maaha wax dawlad kale u dhaxeeya ama axzaab iyo jabhado oo ayaga isku haya loolan oo dagaal oo markaa u baahan faragelin dibadda ah inay ka timaado oo lagu hakinayo qalalaasaha ka dhex jiro halkani dawlad dastuur ku dhisan ee caalamkana ku aqoonsaday sharciyadeeda dastuurkaasi ayaana dhex yaala waxaana loo yaqaanaa dawladani dawlad parliamentarian ah oo baarlamaanka ayaa u ah udub dhaxaad oo madaxweynuhu iyadu keentay hay'adda ma aragtay sharci dejinta ah ayada ayaa midda prime ministerka markuu madaxweynaha uu soo magacaabay codka kalsoonida isaga iyo xukuumaddiisaba siisay ah iyada ayaa ah midda u ansixisa guud ahaan shuruucda ee ay doonayaan inay ku falgalaan ama ay hirgeliyaan ama heshiisyada ay soo gaaraan marka hay-addii oo sharciyan iyada joogta oo awoodeedana iyadu ay siinayso inay wax ka qabato wixii u baahan sixitaan wixii u baahan maaragtay wax ka dhihid ama ha noqoto mid siyaasad la xiriirta ama mid amni la xiriirta ama mid dhaqaale la xiriirta ama mid arrimo bulshadeed khusaysa marka garan maayo cidda kale ee iyada la sugayo inay u soo gacan haatiso ayadoo haddii sharciga aanan lagu dhaqmin waxa keeni kara mar waliba in kala daadsanaan iyo is aaminaad la'aan sal ay u noqoto wax waliba oo qof waliba isaga marka inuu iska sameeyana inuu ku dhiirado iyada suurtagelin karto. Rahmaan Rahiim magacaygu waa Saciid Eega Maxamed haddaan ku bilaabo darafka saddexaad ee la danaynayo waxaan u arkaa inay tahay arrin khaldan horta in darafka saddexaad la raadiyaaba darafka saddexaad la raadina waxa la rabaa in la soo celiyo arrintii gabre iyo wax lamid ah ama Eritrea iyo Soomaaliya ma dawlad bay leedahay caasimadu waa nabada in meel saddexaad la raadiyo khalad baa loo arkaa marinta waa nabad hadda meel walbana waa lagu qaban karaa hadda shalay waxa ku shaleeyeen Kismaayo iyagoo Kismaayo ku shaleeyay in dhahan meel saddexaad oo xamar ahayn barna dawladdiina xarunteeda ah waxaan arkaa iyadana khalad waxaana muujinaysaa kala fogaanshaha iyo rabitaan la'aanta dawladda ee nimankan madaxda ka gobolada madaxda ka waxay u arkaan inay iyagu madaxweynayaal yihiin laakiin maaha waa godood gobolada waa barasaabiyo wey waana khalad inay dalbadaan inay dal saddexaad iyo meel saddexaad ay aadaan iyagoo haysta Soomaaliya gudaheeda oo nabada waa in hargeysa tagaan ayaan la raadin ajnabi iyo dibadda Imaaraad iyo Ethiopia magacaygu waa Saciid Maxamed Saalax isbariij hali gudaheeda inay arrinkeeda ka xalilato darafkan saddexaad waxa sababaya waxa weeye waa hal shay waxa weeye hantidii ay hayeen maamul goboleedyadu hantidii ay hayeen oo ummadda u hayeen markay tii wax ku filin waayeen tii kale federaalku u dhiibay bay diidan yihiin in lagala xisaabo wadayna dawladnimadii iyo miisaankii Soomaaliya lahayd meesha ka saarnay sababtoo ah meesha Soomaaliya dawlad bay leedahay aan ku meel gaar ahayn dawlad caalamiga ah in maanta waliba rajo weyn laga qabo inay yiraahdaan maanta hana la dhexdhexaadsho sidii dad mag lagu kala saarayo ama arrimihii beelaha oo kale lagu yaqaanay uma aragno arrin xal madaxweynaha Soomaaliya hadda jooga Soomaaliya lagu doortay kii ka horeeyay Soomaaliya lagu doortay in maanta la yiraahdo meel lagu qabto ma la helayaa amni darro darteed waxaan u malaynayaa wax hadda la saadsanayo inay tahay aniga magacaygu waa Caasha Xasan Barre waxaa dhexdhexaadin kara isimada aqoon-yahamiinta haweenka waxgaradka Soomaaliyeed oo dhan waaye baa la yiri waa inagaan is yeelay dalkeena inaga leh dad shisheeye iyo dawlad shisheeye inay dhexgalaan ma dalkeena waa inaynu inagu isku nimaadnaa inagu aynu ka garnaqsan. Rahmaan Rahiim aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdikariin Xuseen Xasan dadka inta badan markii la yiraahdo daraf saddexaad waxa maskaxdooda ku soo dhacda international community waayadan dambe aad baa waxa noogu badnaa waxa la yiraahdaa international community laakiin daraf saddexaad ma noqon karo kaliya international community aniga waxaan aaminsanahay darafka saddexaad waxa ugu muhiimsan inuu noqdo in gargaradka asxaabta siyaasadda isma